الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bishii Abriil 2022 waxaan halkan u imid aan keenay dukumentigii la soo diray oo la sagarabay in ay soo buuxiyaan musharaxiinta anigoo kamid ah musharaxiinta u tartamaya gudoomiye ku xigeenka koowaad golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan halkan la imid dukumentigii la diray guddiga ayaan u geeyay way iga qabloodeen waxayna soo guddoonsiiyeen shahaadadii aan ku tartami lahaa hadduu Allah waddo ogolaado oo ugu tartami lahaa golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya gudoomiye ku xigeenkiisa koowaad waxaan rajaynayaa hadduu Allah waddo uu ogolaado in arinkaasi aan ku guuleysto alla nu talab saartay ilaah baan ka tuugeena ma jirto cid aanan Allah subhanahu wa ta'ala aanan ahayn iyo xildhibaanadiga sharafta leh oo 275 ah oo ku kalsoonahay in ay hamiga igalay ee amaanta aan isleeyahay waxbaad qaban kartaa waxbaad hogaamin kartaa waxbaad ka bedeli kartaa in maanta meelihii iskaga qabsi jiray oo dhan xogaha katiyada si loo fuliyo sharciga Allah waa sharciga kitaabka munazalka ah laakiin waxa aan rabo waxay tahay in aan maanta wax ka qabto si aan isaga hor imaanin in lagu dul shaqeeyo dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka iyo xeerarka kale ee u degsanba haddii aan ku dul shaqeyno intaasi ma jirayso wax la yiraahdo isqabsi iyo iska hor imaad dastuurka waa heshiis bulsho waaye waa wax lagu heshiis waaye xeer hoosaadka baarlamaanka waa sidaas oo kale wax la heshiiyo lagu heshiiyo waaye la qoray ee la wada saxiix waaye wax walba lagu shaqeynayana halkaas ay ku dhan yihiin oo baarlamaan weynaha uu ku shaqeynayo sadarteed waxaan leeyahay ku celcelinay waxay tahay maadaama khibrad aan u leeyahay inta aan dhex fadhiyo baarlamaan weynaha aan ogahay waxyaabaha qaarkood oo xoogaa isqab qabsiga yimaado shuruucda ahay iyo baarlamaan xeer hoosaadka ahayba in waxyaabahaasi oo kaleenta aan la isaga hor imaanin oo aan rabo inaan ku dadaalo arrimahaasi si loogu gudbi lahaa waxaan kalentoo leeyahay haddii arrintan Allah uu guuleeyo waxyaabihii baarlamaanka baahidiisa ahayd haddii ay ahay lahayd gudooyinkii guddiga haddii ay lahayd xaqoodii macnaha horumarineed ee caafimaadka daryeelkoodii wax waliba waxaan leeyahay in aan raadiyo ayaan ku talagalsanahay alaan ha ii fududeeyo waxaan rajaynayaa hadduu Allah waddo ogolaado anigoo ku kalsoon Allah subhanahu wa ta'ala inuu garab igu siiyo gul igu siiyo ee baarlamaanka weynahayga ma ahi nin maanta ka socda faction ee la leeyahay hebela wato iyo hebela wato iyo urur hebela wato iyo hebela wato Allah subhanahu wa ta'ala ay wata dadkaygan ku kalsoonahay xildhibaanadaygan ku kalsoonahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ku kalsoonahay ciidan maanta la leeyahay ma ahi nin maanta leeyahay Butoriyo xasad dhinacaasa waxa ka dambeeyo Allah iga dambeeyo Allah garabkayga Allah tala saartay ee baarlamaanka weynahayga intaas ay aan rabaa hadduu Allah waddo ogolaado in garab lagu siiyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh